qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qaraxa ayaa maanta galinkii dambe waxa uu ka dhacay isgooska Jubba ee magaalada Muqdisho goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa tagay isla markaana xog badan inooga haya wariyaheena Cali Axmed Sheekh oo iminka stuudiyaha igula sugan محمود قرح wuxuu dhacay wax yar uun ka hor salaadii maqrib inta aan la gelin waxaana loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ka oo la dhigay isgoyska Jubba gaar ahaan sarta dheer ee Jubba halkaas waxa ay tahay meel ay ku taalo maqaayad yar oo dadku ay shaax ka cabaan oo isugu yimaadaan dadka qaadka cuna iyo sidoo kale askarta ka tirsan ciidamada dawladda maadaama meeshu ay tahay xarun ay ciidamada booliiska iyo sidoo kale kuwa dawladda ay hay'adda nabad sugidda ay baaritaan ka sameeyaan xilli kasta waxaana qaraxaasi uu qasaare ka soo gaaray intiisa badan dad reed ah gabi ahaan waxa burburay maqaayadii meesha ku taalay iyo sidoo kale dukaamo yar yar oo jiingada ka sameeysan oo ka agdhawaa gabi ahaanba waxaan ugu tagay markii horeba sida aad maqlayseen qeylada ee ka yeereysay dad kamid ah ehelada dadka meesha ku geeriyooday kuwa oo halka qarax uu ka dhacay joogay lana yaabana sida ay wax dhaceen iyo meedadka meesha yaala iyo sida gabi ahaanba goobta ay u taalo intaasi kadib waxaan anigu arkay oo indhiga ugu tagay 4 meed oo meesha taalo kuwa oo haba yaraatee aysan jirin qof aqoon karta maadaama intooda badan ay wajiga wax ka gaareen jirarkooda qaar kamid ah ay go'ayeen sida gacmaha ka go'een indhaha dadku ay ka baxeen oo firir aad ay ka galeen maadaama qaraxu uu meel dadku aysan wax badan ka dheereen oo u dhaweyn ay fadhiyeen waxaan anigu arkay afartaasi mid oo meesha taalay ka hortay waxa la qaaday dad dhaawacyo ah iyo sidoo kale dad meedada ah oo dadkooda ay qaateen waxaan la kulmay markii aan meesha tagay haweeney ka agdhoweed meesha oo shidaal ku iibsatay iyadoo isgooska Jubba meel aan sidaas uga fogeyn goobta uu qarax ka dhacay waxa iyada naftirkeedu waa dhaawac haweeneydaasi oo lugta ayaa firir ka galay waxa ay joogtay meesha iyada oo kursi ku fadhisa waxaan weydiiyay bal sida uu ahaa waxa ay aragtay markuu qarax u dhacay walaalo aniga xabad ma ooga meeshan iska fadhiyo shidaala iska gadaay matoor haadaayo oo agtayda ku soo dhacayaan ka war hela aniga lugta dhan inay iga go'da u maleeyayba moobeelada walaa lacagta wixii oo dhan waa ka wada ordabo meesha marka sidoo ah jawigeeda bal meesha jawigeeda aad u kacsanaa qofka horta go'santa waxaan kula waxaan sheegi karo mal aniga ina soo qaadan ku sigto waaliyan ku sigto meesha yaa jooga marka qarax ka dhacay meesha waxa joogay meesha dad jooga BBT aad ganacsi aad waa lagu qayilaayay kama hay ana matoor haadaayo war helan ku dhaw agtaydu ku soo dhacay jawiga shoogana qaadaba iga waranta dadka meesha jooga maxay isugu jireen macaaro dumar iyo may ku jireen masarad war aniga dadkii oo sida bal u safan arka ma ka sheekay kartaan qabatay ani lugtayda inay go'da u qabaay alxamdulillah shukr hadda waarana fir yara ugu jiro hadda adiga lugtaad ka dhaawacantay fir yara ugu jiro hadda waa sheekay dadkii adaama arkay anigu waa fiicana sidoo kale wiil lagu magacaabo Fahad Maxamed Cali oo kamid ahaa dadkii markii ugu horeysay qaraxu dhacay goobta gaaray waxna ka qaaday dadkii dhaawacyada ahaa ayaa waxa uu sheegay in dadka ay qaadeen oo ambulance ay saareen ay isugu jireen oo kuwa dhaawacyada ahaayeen kuwa ka go'ay ama se waxyeello xoogan oo qaraxu soo gaarsiiyay kuwa oo gacmaha ka go'ay oo naftirkiisu ka xirxiray wiilkaasi waxa ka muuqday dhiig ku yaala korkiisa iyo gabi ahaanba qaybihiisa kala duwan ee jirka maadaama ay jireen dad dhaawacyo qabay iyo kuwa dhintay oo isagu qaaday waxaana meesha ka muuqday burbur xoogan oo soo gaaray meesha iyo sidoo kale goobaha ka agdhow sidoo kale maxamuudow meesha waxaa ka muuqday hilbo go'ay oo dadka qaarkood jirkooda uu go'ay waxaana dareemaysaa ka hor wax badan inta soo socotay meesha oo aan soo gaarin inuu qarax ka dhacay sababtoo ah waxa ku soo gaaraya urka iyo karka dhiiga iyo derbiyada waxa ku dhagan hilbaha meelo ka dheer ayaadna ka dareemi kartaa inuu qaraxu xooganaa waxaan arkay meelo qaybo kamid ah gaarigii qarxay oo meesha yaala Fahad isna waxa uu ii sheegay wixii uu arkay aniga magacii waxa la dhahaa Fahad Maxamed Cali maadaama aan arkay afar qofood oo dhaawac ah aan arkay markaan arkay misana ishay gacanta aan ka duubay inta kale oo dhaawac hal madax ka goosan iyo hal kale iyo nawaadiday hal kale oo kala go'ana waa diiday Fahad Maxamed Cali aan la dhahay meeshan Jubba waay maxay ahayd meeshan ishay waxa meel shaax koob shaax waay oo qaylaad iyo oo la fadhiisto waay ka hor intii uusan qarxin sidee ahayd iga waran jawiga intayna qarxin aniga misana waxaan arkay nin dhaawac oo gacantan oo dhan oo ka wala go'an tahay oo dhaawac dhan
maroodhina inta ka soo qabtay waa gacantaan ugu duuban maxamed cismaanow goobta galabta gabar joogtay ama aan sidaas uga dheerin waxa ay sheegtay in gaarigu uu ahaa mid lasoo dhigay oo dadka qaarkoodna isku sheegayeen gaari ayaa yaala inkastoo tuhan xoogan uusan sii gelin bay tiri dadka gaariga mar xilli sii horeeyay ayaa meesha la dhigay waxaana ay tiri dadka qaarkood waa ay arkeen in gaariga balse tuhan sidaas usii weyn amase isku sheegid sidaas usii burma ay sii gelin waxa ay sheegtay in galabta markii uu qaraxu dhacayay dadku ka badnaa tiradii hore u imaan jirtay meeshuna ay aada u buuxeen xilligan uu ahaa xilli loo bixi rabay salaadii maqrib oo uusan waqtigu amase dadku aysan aada u kala tegaynin lagana sii baxayay maalintii habeenkiina uu soo dhawaanayay meesha maqaayada ahayd maqaayada oo lagu qayiday dad shacab iyo ciid inta ku qayinayaan baabuur soo dhigay baabuurka maanta uu yaalay abaar maqribka markii loo dhawaaday gaariga hawada galaal arkay dad shacab oo ku baabay dad badan oo meesha dhex jiifay oo la soo dhaawac la kala wadaayay kadibna booliska dadka imaadeen shacab waa dadka oo masaakiinta dhaawacmeena waa la aruriyay يا إماجرين مركب ما إذا كنت شعب أنتم إماجرين أنت وإماجرين ها ماشى غير عادي دكان مقاعد بل واحد يجوا أنت مركب جودي إذا قلبت سدوها إلا أنت ترى ما شاء الله جودي هذا وفعنا بدنا ويجوجين ماشي شذا أول لو قيل يجري هاد عادي إذا كلامي كان نحن كله يميل كسر بس شغل كله ماشي عمل مقاعد وشعب كوفهم وايد هذا ركت مركب قرح هذا مركب قرح مركب كنا دد بدنا دعوة كله وضع كل عرّاي دد بدنا كل انتين شعبي هاي وحي باباي هي محل حرونه كليا مقاعد مسحرهم بدن وايد مقاعد حل حرونه وين واي الدكان ماشي كيا لو اسله